كلتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku fiirin doono waxqabadkii ugu dambeeyay ee xukuumadda Soomaaliya oo aad mooday in toddobaadyada ay waxqabad ballaaran ay ka socdeen gudaha dalka barnaamijkan aan ugu magac darnay waxqabadka muuqda iyo toddobaadkii tagay waxaan ku soo qaadan doonaa waxqabadka muuqda ee ay sameysay xukuumadda حسن علي خيري تدبات كي تجي تاسو أدبت إن ضد بدني أي أدو هذا الهين يضنا أي أنت بدن سياسة وأن أبنها إنه كصوبيري حسن علي خيري دوان وش كعصب سياسة الصومالية إسلام مرجع سنة ضد كصومالية لو يقانون إني دقدقان وأيسن أضل قادن وقت قفكاس وحقوق من كريو أما أكوفش من كريو واحد بدين الصومال هذا كبر وروي وحقبت كموضع حكومة الصومالية وقت يعني أي صوب ملكتي هذه أكو بيقولنا وحى حكومة الصومالية حسن علي خيري تطلعت كي تجيب بالوجدي أي كل كلها وسيرة خميس لها أن أجمع إنه كسر سعرين وربحين أي ودي أن تتك هيستوهب كشرع دردا أي مجال مقتشين الشرع جود أي كسر رجيان دولة السيهوب كأي هيستان أي دولة ولا صعطة إسلام مركز إنه أو إرادة الغالية الشرع دردا يولي بهوب كتير ضدنا عاصمة الصومالية مقتشو لقول حوض تعسو أي مركو رئيسي بدو بدن كبدل كتام توجه عاصمة الصومالية مقدشو أنت بدن عن أجنها إن لبعتن كسنة وجود بيدد هوب كدوم وطو أيسن دولة ولا صعن أي كو حوضين مقدشو حنا تبدأ يمسين قيبوين هيد أمان حمد مجالات ما دام عد كستو خوب وضع تعي وفوض هاي إن وحيد دونا أي سميسو إسلام مركز إن دولة أيسن كلا قانون عد لبعتك أمان عدي كلا waxayna bilowgii toddobaadkan xukuumadda Soomaaliya sheegtay in ay looga baahan in si degdeg ah cid kasta oo hub haysata ay dawladda ku soo wargeliso si dawladdu ay u qorto labadii July ee isla toddobaadkan sanadka 2017 waxa aaday Addis Ababa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre isagoo kula kulmay magaalada Addis Ababa shirkii midowga Afrika oo ka qayb galay qaar ka mid ah midowga Afrika madaxdooda iyo wadamada dariska oo kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaas dariska ah qodobada ugu muhiimsan ee aan ka soo qaadan karnaa waxa kamid ahaa in uu Ethiopia kala kulmay sidii ay u sii deyn lahayd dad Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jiray muddo aad u dheer kuwaas intood badan ay fududeyd waxa loo haysto laakiin aysan jirin dawlad u doodo oo gacan ka siisa sidii dadkaas xorriyadoodii ay dib ugu heli lahaayeen waxa markii ugu horeysay Ra'iisul Xasan Cali Khayre uu suurta galiyay muddo 20 sanadood ah in isku mar laga sii daayo xabsi ku yaala Ethiopia in ka badan 120 qof oo Soomaali ah kuwaas oo intooda badan aan ognahay inay waxay ku xidhnayeen aad u yareed laakiin ay fududeyd dawlad kala dooda sidii dadkaas loo sii deyn lahaa inay helaan waxa ra'iisul wasaaraha sidoo kale uu sheegay hadal uu Addis Ababa ka jeediyay in ay socdaan wada hadallo kale oo dad kale lagu sii deynayo laakiin hadda ay tahay wajigii u horeysay oo dadkaas ku bal 20 qof lagu sii deynayo dalka Ethiopia gaar ahaan ay ku jiraan xabsiyo ku yaala gobolada kala duwan ee dalka Ethiopia taasna waa waxqabad kamid ah waxqabadka muuqda ee toddobaadkii tagay iyo xukuumadda Xasan Cali Khayre uu la soo muuqday shantii bishan July sanadka 2017 waxa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay soo saartay in in ka badan 140 shirkadood oo ajnabi ah oo ku sugan Muqdisho aysan bixinin cashuurta loogana baahan yahay in si degdeg ah ay isugu soo diiwaan galiyaan xarunta canshuuraha ee dawladda federaalka Soomaaliya taas oo ah markii ugu horeysay oo si la mid ah dawladdu ay ku dhiirato in shirkadahaas ajnabiga ah ee ka hawlgala Soomaaliya oo ganacsi u jooga uma joogan intaas shirkadaha badankooda uma joogan inay dad kaalmeeyaan uma joogan inay dawladda Soomaaliya caawiyaan shakhsi ahaan bay u joogaan iyo interest gaar ah waxayna intooda badan la sheegay in xarumooda ay ku yaalaan xarunta xalane oo fadhi u ah ciidamada midowga Afrika oo intooda badan aan ognahay in lagu dhibaateyn jiray wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah inta booqdaan laga soo celin jiray in ay shirkadahaasi ku jiraan oo waxyaabaha ku hoos jira aynaan maanta la socon karaynin waxay dawladda federaalka soo saartay inay yimaadaan xarunta canshuuraha dawladda federaalka si markaasi ay u dhiibaan canshuuraha ku waajibay sidoo kale waxay dawladda soo saartay inay jiraan isla shirkado ku xarumo kale xarunta airportka iyo waliba mid u dhow iyaguna sidoo kale aan bixinin waa talaabadii ugu horeysay iyadoo muujinaysa dawladda Soomaaliya inay ku dhiirato in shirkadahani qaabka ay ku soo galeen Soomaaliya laga yaabo inaysan si sax ahayn haddana wali doonaya inay Soomaaliya ay gudaheedii ay ka fuliyaan mashaariico iyagu ay danahooda gaarka ilaashanayaan
waxay soo saartay dowladda Soomaaliya in si degdeg ah ay u yimaadaan dowladda oo canshuurihii ku waajibay ay bixiyaan hadii kalena lagala noqon doono ruqsadda ay ka shaqeeyaan Soomaaliya taasna waa mid kamid ah talaabooyinkii wax qabadka muuqda ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre toddobaadkan tagay ay soo bandhigtay oo aan la inkiri karaynin isla 6 bisha July sanadka 2017 waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay dawladda federaalka Soomaaliya doonayso in qof Soomaaliyeed shaqo uu qaban karayo aysan qaban doonin dad ajnabi ah tan iyo sanadkii in ka badan 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya dhibaatada haysata waxa ay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baranayay ee jaamacadaha ka soo baxay in ay intooda badan marka ay dalkii joogaan aysan helin shaqadii ay u baahnaayeen oo qaban karayeen waxa laga doorbiday dad ama banaanka qiimo oo Soomaali oo basaboor Soomaali ah wata waa dad Soomaaliyeed kuwaas way shaqooyinka way qaban karaan laakiin dad ajnabi oo dalka aan ku soo galin si sharci ah oo dalka aan ku lahayn wax sharci ah oo maanta markuu doono qofku iskaga baxayo dalkan oo uusan ku lahayn joogitaan uu ku sii joogi karayo in dalka intuu yimaado si fudud uga shaqeeyo xarumaha muhiimka ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee shaqadoonka ah ee awooda inuu ka shaqeeyo u baahnaa inaysan hore u jirin isla markaasna ay soo saartay xukuumadda Soomaaliya in aysan qof Soomaaliyeed shaqo u qaban karayo inaysan qaban doonin dad ajnabi ah waa mid kamid ah wax qabadka muuqda oo ay soo bandhigtay xukuumadda Soomaaliya toddobaadkii tagay isla markaasina aan ognahay inaan la inkiri karaynin in ay wax badan oo ka bedeli doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ee badda ku tahriibaya si ay noloshooda ugu maareeyaan ama meel ka wanaagsan halka ay ku nool yihiin ay ku noolaadaan iyagoo dalkoodii jooga taas oo meesha ka saaraysa wadanimadii qofku wuxuu wadani yahay markuu dalkiisii loo ogol yahay waxa uu qaban karo markuu ka qabto laakiin marka meel lagu xiro qofka la yiraahdo adoo halkaas joog wadanimadiisa qofka ma muuqanayso qofka waxa kama dugna qof xabsi ku jira marka uu soo hadli karaan qofku markuu soo shaqada uu qabanayo u baahnaa marka laga hormariyo qof aan muwaadin ahayn laga hormariyo waa mid kamid ah waxqabadkii ugu weynaa ee toddobaadkan xukuumaddu ay soo bandhigtay isla 5 bisha July sanadka 2017 ilaa iyo 9 bisha waxa magaalada Muqdisho ku kulmay golaha amniga qaranka oo ay hogaaminayaan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay la garab ka helayso dawlad goboleedyada dalka ka jira 10 sanadood ugu dambeeyay iyo 5 sanadood ugu dambeeyay waxa dhagaheen aad ugu soo baxayay in dhibaato ay kala haysatay maamul goboleedyada oo qayb kamid ah dalkii Soomaaliya oo loo baahnaa in federaalka iyo waliba dadkaas ay wada shaqeyn wanaagsan si dhexmarto si ay amaanka uga wada shaqeeyaan si ay horumarka dalka uga wada shaqeeyaan waxa Muqdisho ku kulmay madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya oo ayaguna sidoo kale wixii ay ka wada hadlayeen ahayd sidii amaanka ay saga kaashan lahaayeen oo ay noqon lahaayeen dad midaysan shirkaas waxa shirgudoominayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sidoo kale goobjoog ah dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo aad moodi in ay ka muuqato waji furnaan ay isugu waji furan yihiin waxaan arki jirnay sanadihii la soo dhaafay iyadoo mid ku taag uu ka dhex jiro maamul goboleedyada oo mid kale uu qori u haysto uu uga jawaabayo warbaahinta laakiin maanta waxaan arkaynaa ayagoo iskarab fadhiyo oo mid kasta hadalka uu leeyahay ka uga dambeeyana hadalkii mid u eg uu leeyahay oo uu leeyahay waxaan taageersanahay dawladda Soomaaliya waan garab taaganahay waxaan doonaynaa Soomaaliya oo isku mid ah oo meel u wada jeeda dabcan wax ka wanaagsan ma jiraan dadka Soomaaliyeed intooda badan dadka hogaaminaya baa dhibaatada ugu weyn 20 sanadood ay dhex taalay ma jiraan shacab Soomaaliyeed oo hadda istagaalaya ma jiraan shacabka Soomaaliyeed ninka Hargeysa jooga iyo ninka Garowe jooga iyo ninka maxalla Muqdisho jooga isma soo gaaraan maanta laakiin dadka warbaahinta isaga hadlayay isugu jawaabay aad moodinay isugu hurnay colaada waa dadka madaxda marka ayaga hadday meel wada fadhistaan oo dhahan isku meel baan u jeednaa waa talaabo kamid ah wax qabadka muuqda ee xukuumadda jirta xilligan ay soo bandhigtay oo aan la inkiri karayn intaas waa qodobo kooban aan soo bandhignay oo ah wax qabadka muuqda ee toddobaadkan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad aad moodi inay aad u degdegaan oo aysan sugin qofku intii wax ku qaban lahaa iyo inta uu ku fashilminaa inaysan sugin waana dabeecad badan aan inagoo dhan aan ognahay oo Soomaalidu ay caado u yeelatay inuu qof dhakhtar ahayn ba dhakhtar qof ilmo yar ba doonay inuu ku maamulo macnaha dadka Soomaaliyeed waqti ay dulqaad ku yeeshaan oo ay sugaan qofkii intii uu wax ku qaban lahaa ama ay ku ogaan lahaayeen inuu qofkaas waxba qaban karin baa ka maqnayd
dabcan waxaan rajeynaya ummadda Soomaaliyeed oo 20 sanadood soo dhaafay ku jirtay isqasqas iyo isu jawaabid iyo waliba khayrkood inay ka hadaan dadkii maanta ay waqtiga gobonimada isla qaateen maanta meelaha ay marayaan ognahay Soomaaliyana inta badan meesha ay marayso waan ka dhareegsanahay dadka hormuudka u ah oo la doonay inay wax ka bedelaan waxa weeye waa warbaahinta waa dadka madaxda waa dadka social activists-ka waa dadka inta badan dadku ay indhahooda arkayaan marka inagu hadaan ka qarino waxaas dadka Soomaaliyeed hadaan ka qarino ayna u soo badhigaan maanta halkan aan soo fadhistay cid igu khasabtay in halkan soo fadhisto aan sheega ma jirto TV uma soo fadhisan shakhsi ahaan baan maanta u hadlaya inaan soo bandhigo wixii wax qabadka xukuumadda Soomaaliya ay soo bandhigtay anoo dareemayo oo og in aniga xil saaran yahay oo adiga xil ku saaran yahay oo qof kasta oo Soomaaliya muwaadin ah maanta xil saaran yahay inaan u dhaqaaqno gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed waxay kamid tahay dadka 20 sanadood ugu dambeeyay dhanka qaldan waxa laga tusay in wixii wanaagsan inay sheegaan war maaha wixii ummadda wax qabad waa inay sheegaan war maaha waxa war ah qarax meel ka dhacay waxa war ah laba qof oo hebel ba isu jawaabay waxa war ah madaxweyne hebel u jawaabay taas war u aragnaa laakiin maanta waxa moodaa xataa shacabkii dhagahoodii inaan ku shubnay in aysan dhageysan karin ama daawan kareenin inay daawadaan oo ay daawadaan warka wanaagsan oo dhinaca wanaagsan loo dhigayo maanta hadaan dhaho Soomaaliya roob baa ka daay hadaan dhaho indhahay waxa la yaabaa bigid ilmaa waxa la dadku inay dhahaan wax saas u weyn ma hadaan dhaho dawladda Soomaaliya horumarka inta ballaaran sameysay maanta war ma laakiin hadaan dhaho laba beelood baa halka isku dagaalay rikoorka noo soo dhaweeyay la leeyahay TV-ga noo daar marka Soomaaliya waxa moodaa dadkii shacabka ah in aan wax ku shubnay indhahoodii iyo dhagahooda aan ku shubnay wax dhinaca xumaanta aan ku shubnay waana warbaahintaana mas'uulka ah in waxaas ku shubaan inagana bedeli karaya in waxaas ka bedelo dadka Soomaaliyeed dhagahooda in waxaas ka bedelo inta ay ku soo gabagabeynayna barnaamijka aan ugu magac daray wax qabadka muuqda iyo xukuumadda Soomaaliya iyo toddobaadkani waxaad kala socon doontaan barnaamijka iyo barnaamijyo la mid ah Maqaan News Channel ama Sham Media aad kala socon doontaan waa anigoo Maxamed Shiine oo idin soo bandhigay iyo Khadar Sham oo iga duubay oo dib dhaafaya nabadgelyo